dalka Botswana oo hoyga ay ku nool yihiin maroodiga ugu tirada badan adduunka ayaa ogolaaday ugaarsigiisa iyadoo sanadkii hore la mamnuucay 6 shati oo lagu ugaarsanayay 60 maroodi ayaa la bixiyay maalintii Jimcihii ee shalay waa markii ugu horeysay uu ogolaado dalka ku yaala Koonfurta Afrika madaxweynaha wadankaasi Mokgweetsi Masisi ayaa laalay sharci mamnuucaya ugaarsiga maroodiga oo muddo 5 sano soconayay sharcigaasi waxa la soo saaray bishii May ee sanadkii hore halkii maroodi ayaa waxa la siisan doonaa 181,000 sida uu sheegay Adrian Ras oo ah madaxa iibka maroodiyada dalka Botswana tirada maroodiyada ku nool Afrika ayaa hoos u dhacday sababtuna waxay tahay ugaarsiga lagu hayo laakiin wadanka Botswana oo ay ku nool yihiin 3 meelood oo 1 meelood maroodiga qaaradu ayaa tiradu ay korodhay waxaana ay gaadhay 130,000 iyadoo hore tiradu ay u ahayd 80,000 sanadii 1990 saraakiisha Botswana ayaa waxay sheegeen in ugaarsiga maroodigu uu muhiim u yahay yareynta colaadaha dhexmara xayawaanka iyo dadka gaar ahaan beeraleyda oo maroodigu uu baabi'iyo midhahooda iyo dhulka ay wax ka beeraan Tiro Sagasebe oo ku nool magaalada caasimada ee Gaborone kana soo jeeda tuulada Mau ayaa waxa uu sheegay in maroodiyadu ay dilaan dad isla markaasina ay burburiyaan hango'aanka dawladdu ay ku yareynayso ayuu ku sheegay mid loo qaaday jihada saxda ah dawladdu waxay doonaysaa inay wax ka qabato colaadaha dhexmara dadka iyo xayawaanka ku wada nool wadankaasi waxana ugaarsigu bilaabmi doona bisha Abriil ee sanadkan laakiin ururada xuquuqda xayawaanka ee Koonfurta Afrika ayaa waxay sheegeen inay walaac ka qabaan ugaarsiga oo ogolaaday dalka Botswana daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida